siyaabo kala duwan ayaa waxaa lagu hadlay ismarwaaga ka dhashay shaqo ka joojintii madaxa hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya iyo dib u soo celintiisaba iyadoo tan iyo shalayna arrintaasi ahayd hadalhaynta ugu badan qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliya ayaa ka digaya in haddii aanan si degdeg ah lagu soo afjarin oo khilaafkan si xooleysto ay waxyeeleen doonto hanaankii doorashada ee markii horeba liitay dhawaan ayay ahayd markii guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu soo saaray jadwalka doorashada golaha shacabka iyo dhamaystirka midka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka haddaba maxamed cabdi cumar waa bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho khadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaan weydiiyey marka hore khilaafkan cusub saamaynta uu ku keeni karo doorashada walaal sax waaye doorashadii ayaa hadda mar dhow loo madalsanay ama la sugayay in hore loo galo marka arrintan hadda soo cusbeenatay doorashada waxay ku leedahay saameyn baaxad leh ayay ku leedahay sababtay saameynta ugu yeelanaysana waxaa ka mid ah in waqtigii la gelin lahay doorashada iyo qaabkii hore loogu soco lahay waqtigaas in la geli doono isjiijiid kale iyo dagaal kale oo aanan ku salaysnayn doorashadii soo doorashada iyada lafteeda dagaalo badan iyo isriiriix badan ayaa ka imaan lahay isriiriixaasa laga yaabi lahaa inuu mararka qaar waqti sii qaato oo dib u sii dhib soo hadda waxay noqonaysaa marka kii iyadoo la gaarin mid kale cusub oo crisis oo wadankii dhan ku jiro oo dhankii amniga iyo meelo badan ay wax ka saameynayaan in uu dib u dhaco kulli marra isqabshashadu ay sii fogaatane waa kulli marra doorashadu dib u sii dhacdo waan ficlan waa wax iska muuqdo haddii aan hadda si dhaqso ah loo xalinin mar walba waqtigu wuu sii ziyaadaya waana sii socon doontaa dib ayayna usii dhici doontaa saas ayay u badan tahay laakiin maxamedow madasha wadatashiga qaranka ayaa doorashadan ka mas-uula dhinacaasna ilaa haatan wax khilaafa oo ka muuqda ma arkin marka qaabkay u saameynaysaa madashu waxay ka shaqayn kartaa markii ay mataqaanidu ay doorashadii madaxda dowladda iyo ciddii kale ku tartamaysa iyo mucaarad leesla wada socdo doorashadii la gelayo ishuga laga hadla oo ayada uu yahay ayay wax wadi karaan meeshay ku shirayeen iyo qaabka iskugu imaanayeen iyo wixii siday u qabanayeen iyo dadkii mataqaanidu la dooran lahaa iyo wixii wax dooran lahaa isku aadintoodii waxay rabtaa arrin amni iyo isku haleyn iyo kalsooni iyo waxbay rabtaa soo marka maba dhici kartaba macquulna maba ahaan iyadoo lees aaminsanayn oo amni ahaan la kala shakisan yahay oo ciddii mas-uuliyadda qaadi lahayd leesku haysto amniga oo kan ka qaad iyo kan u dhiib iyo kama qaadin iyo waan ka qaada leesku haysto macquul ma ahan inay shaqeeyaan tiimka kaleeto markii horeba hanaanka doorashada ay ku socotay mid xawaare ku socda ma ahayn caqabado badanna way jireen marba mid baa laga soo gudbaya haatan middan baa cusub ma jirtaa marka qaab hanaanka doorashada uu sii socon karo waa su-aal fiican waaye horta khilaafka iyo crisiska ama mushkiladan ama caqabada hadda taagan way kala duwan tahay iyo kuwii hore tii hore waxay ka taagneed caqabadaha hore oo imaanaya waxay ka taagneed mucaaradka iyo dowladda iyo rabtay inay doorasho gato iyo doorashada sidaa rabtid ha u dhigin si mataqaanida hufan transparency ha u dhacdo iyo wax saas ay isku haysteen hadda mushkilada waxay ka jirtaa xayndaabkii gudaha ayay uu khilaafkii soo kala dhex galay marka kanu kii horena wuu ka ballaaran yahay wuuna ka saameyn badan yahay wuuna ka dhib badan yahay wuuna ka culus yahay waqtigana in iyadoonan arrintaas meel layskula ogaanin doorasho la aado aad ayay u dhib badnaanaysaa way adkaanaysaa sidee marka wax laisula ogaan karaa khilaafkan oo taagan in doorasho la aado waxay noqonaysaa labada tiim kamida inuu tanaasulo unbay hawsha ku fududaan kartaa maana iyadoo lays haysto amni sugitaanka iyo wixii ama mashaakilka meeshaas ka dhaca yaa amni sugaayo adiga waa isdagaalsanahay dowladdii dhexdeeda ciddii amniga sugaysa iyay hoos tagaysaa yaa amniga sugaayo marka waxaan u malaynayaa inay xaliyaan inay ku qurux badnaan doonto iyadoo saan laysku jiidayo inaan waxba la dooran karin waxbana laysku imaan karin dhinacyada ay khusayso arrinta doorashada maxaa la gudboon inay sameeyaan wallahi Soomaalida horta waxa waaye waa dhibaatooyin fara badan iyo khilaaf badan waa laga soo daalay iyo anaa ka ragsan iyo waa ka xoog badan hay waxba ma sameyn kartid xaqiiqadu waxay tahay in si hoose gacmo geli jira hoose ayaa loo dhaqaa si hoose wax loo galo ummadda la badbaadiyo wadanka la badbaadiyo crisiska hadda mataqaanida wuxuu ku jiraa meel adag ayuu soo galay ra'iisul wasaare iyo madaxweynihii labadii xafiiso mataqaanida wadanka ugu sareysay inay mataqaanida waxyaabo kala duwan ay soo saaraan arrin halisteeda la waaye soo marka waxaa fiican dadka culimada dadka waxgaradka dadka aqoonyahanka in arrintan loo kaco bal hoos loo dejiyo si aanan masiibo kale faraha loola gelin saasay ku qurux badan tahay kaas waxa uu ahaa maxamed cabdi cumar oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho khadka taleefanka ee ugu waran